darawallada gaadiidka ee magaalada Muqdisho ayaa dhigay banaanbax cabasho oo ay ugu cabanayaan amar dawladda ay dhawaan soo saartay. Manasar Maxamed Cabdi ayaa warkan ka soo dirtay Muqdisho. wadayaasha dhugdhugleyda ee ka howlgasha magaalada Muqdisho waxay isugu yimaadeen taalada daljirka Dahsoon halkaas oo ay ku qabteen dibadbax ballaaran oo ay ku muujinayeen cabashadooda ku aadan lacago xad dhaaf ah oo laga qaado iyo wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho oo laga mamnuucay inay isticmaalaan. wadayaashan oo intooda badan maanta ku kulmay xaruntan daljirka Dahsoon ayaa sheegay in dhibaato fara badan oo aan indhaha laga daboolan karin ay ku qabaan dawladda hoose iyo waliba wasaaradda maaliyadda oo ay sheegeen in lacaga xad dhaaf laga qaado. tusaale ay u soo qaateen in wadooyinka qaar laga mamnuucay sida wadada sida tooska u gashay airportka magaalada Muqdisho iyo waliba wadada Makka al-Mukarrama qayb ahaan halkaas oo dhawaan amar ka soo baxay dawladda Soomaaliya lagu sheegay in aysan mari karin bajaajta. waa kan mid ka mid ah wadayaashaas oo warbaahinta la hadlay waxa uu faahfaahin bixinayaa dhibaatada ay qabaan. waxaan cabasho ballaaran aan ka nahay 4 qodob. 4taas qodob waxa ay kala yihiin koow mootooyinka waana laga dhacaa. mootooyin badan aa la dhacay wax indhaha laga qarsan kara ma ahan. maxaa la yiraahdaa welina dhibkaas dhacay wax ka qabtay oo ka garaabay ilaa ay hadda weli ma aan aragno. waa koow. laba waxaa jirto checkpointyada qaarkood in la yiraahdo hays xayirin anigu ku xayiri maayo. macnaheeduna waxa uu yahay waxa mootada furaheeda keen xaggana dhig haddii kale lacag dhiib. arrintaasna dhibay nagu noqotay ayadoo aysan ku xireen wax sharciyad ah. sharciyad xataa hadda sharcigeedu aad ku dhameystiran yahay hees xayir ku xayiri maaya taalo adu qof reer magaala iska dhig. ma ahan dibadbixi ugu horeeyay ee ay dhigaan wadayaashan dhugdhugleyda ee magaalada Muqdisho waxaana ka horeeyay dhowr dibadbax oo ay dhigeen oo sidan oo kale ay uga cabanayeen dawladda hoose iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha faraha badan ee la xiriira dhaqaalaha oo saameyn ballaaran ku yeeshay geedi qaadka noloshooda. Manasar Maxamed Cabdi, telefishinka Somali Channel, Muqdisho.